hawlo badan baa inoo yaala waynu saararki doonaa waxaan saanagu idinka baahan idin sheegay kow in laga hayo fayl urur walba halkaa oo registerka aad xarunta gobolka lafteeda sharcigiisa iyo xubnihiisaba in la helo waxa soo dhan waxa ka muhiim ah dhalinyaradiina waa ogtay Itoobiya waxaanu ku soo fasaday khamri iyo xashiisha dhalinyarteena waa la fasahaadinaya cid ururinaysa oo qaxmo dhuudhuumanayga xaafadii la joogtaan waa idinka inaad dhiib u gashaan oo ruuxan halku inaga soo galay muxuu ina yeeli karayaa sidee nugu hortaginaa inaad taladeeda keentaan oo waxaad adigu waxba ka qaban karo weydo dawladda wax ku qabanaysa jira mushkiladaas halka jirta xarun khamri halka laga sameeyay xashiishada baabuurka iyo waxa soo raacda inaynu war kale helno saynu fasahaadka laftiisa wax uga qabanno waxa muhiim ah rasuulkeena alayhi salaatu wa salaam markuu ducaysanayay ilaahay wuxuu weydiistay amni iyo iimaan haddaynu maanta isku yaacyaacno masaajidka meel ku tukanaynaa cibaade iyo caawimo iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo waxaan oo dhan waxa ay salo ah waa nabadgelyadeen warmana waxa kaliya ku faantaa waa magaalo multi population oo dad badan oo kala jaajad isugu yimi jaamacad eershan kun oo qof baa dhigta Soomaali meel ay joogto waa la isaga yimaadaa dadana banku qarxin macad baa noo imanaysa lin macqoonteedana sheeganayna in inaga la inaga arko gobol lagu daydaynayo noqono laakiin gobol wax ku daydaynayo noqon baan rajeynaya waxa weeye ururadiina haddii dhalinyaradiina xaafadina dib ugu noqotaan oo intiina aydan isku soo koobin wax badan baa qaban kartaan siyaabo badan baan isu kaashan karnaa ka waxa idin leeyahay warbal magaalada nabadgelyada inaan noo ilaashan lahayna ka hawlgala saynu isu sharciyeelno dad isku duubano iswadoogo is xaalugna aynu u noqon lahayna aan isku dayno inay maanta aynu halkan isugu nimi waxa weeye saddexda arrimood in la ogaado institutionku waxa uu taagan yahay oo aynu ka shaqeeyeen la ogaado fiilka ku wajahan yahay in lagu ogaanayo oo bulshada aynu turjumay iyo wada shaqeynta inaga naga dhaxayso oo ay tahay xaqii amniga haddaanu amni jirin waxba shaqeynna dhulka ay wax ka dhacayaan intiina ku baahsan joogto haddayna ka xun iska qaban barasaabkuna kali waxba qaban maayo meeyarkuna kali waxba qaban maayo wad garsooma waa magaalo nabadeed dad yow kala duwan oo kala dhalasho duwan oo waxbarasho soo doontay oo ajaanib ayaa ku nool waxa la doonay magaalada inay noqoto magaalo nabadeed inay noqoto